qaraxa oo ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lagu bartilmaameedsaday gaari marayay wadada Daarusalaam islamarkaana ay la socdeen gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda degmada Daynile Cabdi Maxamed Maxamuud iyo istaafkiisa. warar ay warbaahinta Nation ka heshay qaraxaasi ila ku dhow iyo mas'uuliyiin ka tirsan degmada Daynile waxa ay xaqiijiyeen in qaraxa uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda ee degmada Daynile, sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo soo gaaray ilaalada gudoomiye ku-xigeenka dhintay kuwaas oo loola cararay isbitaalada Muqdisho si loogu dabiibo xaaladooda caafimaad. sawiro laga soo qaaday gaariga qaraxa uu qabsaday ayaa ka muuqda firir meelo badan oo gaariga ka mid ah ka dhex baxay. ma jiro shacab qaraxaasi uu waxyeelo ka soo gaaray marka laga soo tago in gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda degmada Daynile uu ku dhintay, ilaaladiisa qaar ka midana ay dhaawacyo soo gaareen. sidoo kale ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka qaraxa ah ee uu ku dhintay gudoomiyaha siyaasadda Daynile, balse waxa uu qayb ka noqonayaa qaraxyo miino oo lagu dilay mas'uuliyiin iyo askar dowladeed. 29 Maaj bishii aynu soo dhaafnay waxaa qarax miino ka badbaaday meel aan ka fogeyn xarunta degmada Daynile xogeeyaha degmada Mahad Sharaawe, kaasi oo qaraxa isaga lala damacsanaa ay ku dhinteen shacab aan waxba galabsan iyo mid ka mid ah ilaaladiisa. Maxamed Yaxya Jiino, warbaahinta Nation, Muqdisho.